بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. مقعي هو جامع أحمد وقلي أو مقع دير أنا بورة. وحن شوقا وطن كفرسيسكا مقالة الرين عاوة تاريخ دو حويا صدحي لواتنكي بشي لحاد صدحي لاتنكي تشون لبكوني صدحي طبنكي ويه. هل كان عاوة حن كدوبا يمانسو أنا قلت هلا قلي إن كجا قيب قاطو. مالين تقالي قاهي لحي لواتنكي تشون إن صوها ريسي أنا مالانية صدحي هبين كهدي. runtii inta badan hadda sida jirta horta 26 Juun de waa wada garanaysaa maan u malaynayaa waa maalintii 1960kii Ingiriisku uu ka kacay Soomaaliland xornimadeeda siiyay waa maalintii gobonimada ay qaateen waa maalintii Hargeysa calanka laga taagay kadibna waa tii de dhowr cisho kadib adigu wax yar kadib 4 cisho kadib waa tii iyagoo xornimadooda intay tuurtay gaariga saareen waa ku Muqdisho geeyay runtii waa maalin dhinac marka laga eego dee mudan oo aan la ilaawi karin taariikhdeeda dhinac marka laga eegana waa xornimo khasaartay waa maalin maaragtay wixii tacabkii lagu khasaaray bay noqotay marka gabayganu runtii waa gabay dheer waxaan kasoo bilaabaya adigu maalinta waxaan kaga hadlayaa waxyaalihii intii mataqaanaa cadaalad darradii dhacday iyo mataqaanaa sidii mataqaanaa markii koonfur la tegay aan loo helinin dadku wanaagii iyo muxabbadii ay wadeen ay noqotay wax ka hor yimi oo cadaalad darrada meesha saddexdii masab ee ugu waaweynaa iyo waxay ahayd ay qaybsadeen qoladii markaa koonfurta joogtay madaxweyne iyagaa noqday iyagaa ra'iisul wasaare noqday baarlamaanka iyagaa qaatay sidoo kuma qalay maxamed ibrahim cigaal baa lagu yiri wax laga dhigay wasiirka beeraha markii dambana de waa ogeydeen oo ka sii darto waqti gacanta municipality xasuuqa iyo de burburka iyo tii maaragtay dadku iyagoo asana ma intaana bixin lagu bilaabay markii dambe jabhad baa samaysatay dagaal baa dhacay adigu taariikh dheer baa ka dhacday dagaalku ku dhisay waxyaalo badan baa laga dhaxlay xasuuq baa ka dhacay marka nimanka Soomaalidu waxa geystay ilaa maanta inay taaganahay misna meel kastoo la taagan yahay kooda waa isku yar iyo ka weyn iyo mutacallinka iyo siyaasiga dhammaan marka aad eegto waa isku hadaf garawshiye malaha ka ugu wanaagsan wuxuu ku wataa waa maanta gabaygan ugu dhashay waxay maalintii dhaweydeen ninkii madaxweynaha u sheeganayay shirarka la fadhiistay la karaameeyay uu yiri dadka roqooyiga markuu xaasinimo iyo makhruuqnimo waxay ka tahay ma garanayno uu yiri waa dad caadifad hayso oo caadifad baa waxaan dabaaldegan iyo waxaan waska caadifad buu ka dhigay dadka dhan ee u soo halgamay qarannimadooda ee sheekh iyo wadaad iyo siyaasi iyo aqoon-yahan iyo mutakar bale macni wax laga soo qaadiyo dad aan tashan karinin oo iyagu aan go'aan lahayn oo wuxuuda dad la maamusho leeyahay kii kula hadlaabo wuxuu ku oranayaa Soomaali baa leh war Soomaaliya waa Soomaali baa leh laakiin Soomaaliduna Soomaaliya waa kala leedahay Djibouti bada waa Soomaaliya oo Djibouti bay leedahay ordo Djibouti de oo Kenya waa taasoo qaar bay leedahay oo Ethiopia Soomaali baa leh laakiin Soomaaliya dhulka waa kala leedahay marka anagu taasaan u leenahay lagama furfurayo marka kulli hadal dheer gabayga de Soomaaliya ku baxaya sabab badan ma laha waxaan u maleynayaa kulli waa fahmi doontaan gabayga de macnihiisa runtii waan stiil runtii oo waxyaalo badan oo maaragtay de mataqaanaa mudnaan la soo hadal qaadana ma soo hadal qaadin on kor goostay marka dhageysi haboon waxaan idhi miimka gabay markuu muuqdo baan marina qaanaaye maala yacni uma tirshiyo magac ku doondoone meel adduunyo kuma iibsadiyo moodka lacageede imaqleeda iyo waa nacbahay miidyahay qoraye aan soo mariyo mirar kooban ay muhatay laabtaydu ingiriis markuu naga tagaan calanka meelaystay magaalada Hargeysana ku muday maalin la arkaayo waxay mashxaradeen haween madasha heesaayay maandeeqan maalooy markuu kuluc macnaynayay maanta ragii joogay baa marxaatiya anigoo mulkiye dawladnimo minowlaho buuxda anigoo maqaam sare fadhiya nabad ku maanshooda anigoo Mareykan iyo Yurub sida masaalkooda ictiraafna lay wada maqlay oo midigta lay saaray wataan ma jiiraha khaldee meel kale u raray markii aan Muqdisho geeyay baan meel xun joogsaday ninna ima muquunin ana seegay marinkii murshuruuda aniga ku xirin miiska soo dhiga maxibada markii aan qabay magaca dhowraayay magaalada Wajeeriye Jigjiga miilada Djibouti markii aan shantii kala maqnaa magana doonayay macaashka ama faa'iidin waxaan maanta ku qiro murugan ka kororsaday runtii laba midayntii matanayntii aan kula galaan mooga weersada meeqaan xunbaan gaaray iyo moralkooy jabaaye midigtayda aniga isku dilay moodarkan wadaye madaxeedii waa goosaniyo mahadhadeedii nin ragaa abaa laga mutaa doqoni waa mooge
maandeeq ba inaan maali karo uma maleeyaane ilaa maanta waa kuwa igu maran meed sidiisii muqdisho maxaan kaa cunaad igaga meeraysan madashaani maadaba maxaa maandha ku agtaagay midnimada aftuubka maxaad iigu miyir beeshay maraboob sideedii miyaad marada ii raacday maya baan ku idhi ee maxaa maqalka kaa qaaday milicsiga xusuus hore haddaan mariyo taariikhda gobonimadu waa shay macaan oo mowla bixiyaa anoon maalmo badan haysan baan maandha kuu imiye dameerkiisa malab lagu raraa malaha liibaane maamuuskii aan kaa mudnaa maanan kaa helin madaxweyne adigaa noqdo miiska yuururay ministarkii adaa qaatiya meelihii sare baarlamaankii adigaa mutiye magacii weynaa madax iyo majaba wad ahayd labada meelood manficii dalkoo idil adaa maali keligaaye mashaariicdii adigaa mulkiyey meel walbeetaba maxbuus baan ahaa kuu xidhnaa oon miciin qabine madluub baa ku jira waayo badan sida majnuunkiiye magacayga waataad qaldaan igu masaashay macnihii halkaa waxaan uga jeeday markii dadkii dee meeshii la tegey ee gobonimadii la qaaday ee meeshii la tegey wax walba dee xukunkii wax walba qaateen dadkii ruuqooyigu dee kulliba caasimad baabata afrika caasimada laga degaa caasimada lasku shubay dadkii sidaa ceelgaabta isu tubay majaaniin waxay u bixiyeen qaldaamiin markaa qaldaamiin dee dadku marka dhinac laga eego dee waynu qaldanayn oo dee waxayni baynu dee haysan kari waynu la cararay marka dee magaceenni bay noo bixiyeen waa marin habaabaa waqi madluub baan ahaa kuu xidhnaa aan miciin qabine magacayga waataad majnuun igu masaasheene magacayga waataad qaldaan igu masaasheen waa marin habaabaa waqi maamul dumayaaye morganiyo markii ina siiyaad madaxa ii qooyey culammadii markii lagu midhtiray diinta marinaysay maalqabeennadii iyo odayadii maynar lagu toogtay maadhiinka waataan gurtee dibadda meeraystay mintidkiiyo dagaalkana galee kugu mayuugaaye mowdkama baqaaye markaan midigta kuu qaaday adigoo u mudan qaaradaba oo dowlad lagu moodo adigoo malyuun ciidanoo maashu soconaya kaaraha mushaaxiya adoo jiiba marinaya beebe madowyo adoo moodhare eryaaya mishigaanadaadii adoo meel walba la taagan anigoo macbuudkay khalqay iyo mowla tala saartay masaabiirta anigoon ka biqin miina ka cabsoonin anigoo ismiidaamiyaan maalin soo gala anigoo ismiidaamiyey baan maalin soo galaye anigoo maruuriyaystay oo cadho imaan qaaday waataan mushkilad weyn ku dhigay manafestada milatarigii iyo ciidankaad xamar ka soo miistay wixii aad maleeshiya qabiil meel isugu keentay mar qudhaan kulleefoolowaa meelay carareen madaxdoodii waataan ma kale mudantidoodii muraarahadilaacan ku baday miidyaha qoray markii aan kumariyaad baroor iskula meerteen abidkiiba mudankuu dilaa macangag liitaaye miciin kale markaad weyday baad shacabka maagteene marficiinu maxastoo quru marin yaqaanaa halkaa waxaan uga jeeday markii ay suurtogeli weyday godalkii laga qabsaday ee muruqo iyo hargeysaba jabhadii gacanta ku dhigeen ee maaragtay la xanuujiyey bay waxay sameeyeen inay waxa lale waxay diyaaradihii miigagiinta kiciyeen madhaafiicdii muxuu ahaa artillerigii waxay haysteenba waxay kaarayaashii waxay mariyeen dadka shacabka bay ku dumiyeen guryaha si shacabku u xanuunsado oo waddanka uga qaxo oo Ethiopia waa tii dabageliyeen marka abidkiiba mudankuu dilaa macangag liitaaye miciin kale markaad weyday baad shacabka maagteene marficiinu maxastoo quru marin yaqaanaaye miigagaad wadeen waxay dileen maata guriyeede xabaalaha markada waa kuwa lafihi muuqdaane muslimnimadu berigaa miyay kaa maqnayd adiga miciinkaadii taree maanta yaad ka soo maqasha muqdishoy maxaan kaa cunaad igaga meeraysan madashaani maadaba maxaa maandha ku agtaagay midnimada aftuubka maxaad iigu miyir beeshay maraboob sideedii miyaad marada ii raacday maya baan ku idhi ee maxaa maqalka kaa qaaday xornimadan macaankeeda helay mowlahay qoraye miyir iima siinine anaa kaa maroorsaday mahlakaan u soo galay dagaal mahadhadiisiiye murug iyo rag baa igaga baxay meel waxaan dhaqaye malyan geesi bay iga qabtaa magacyo waaweyn malyan geesi bay iga qabtaa magacyo waaweyne malyan kalena waa iga diyaar haddaad imaagtaane maynar haddaad u aragteen mala meel cidla ataalla maankiinu waa gaaban yahay magac ilaahaye haddii aad maraykan iyo yurub qaylo kula meerto marinada carbeed iyo haddaad masar u yeedho afrikada madow iyo haddaad shiina maqashiiso ma dhacayso inaa maalin kale dib u midownaaye maankayga waan kaa jaree taada mara saaro ismaamulniyahow maankayga waan kaa jaree taada mara saaro madaxweyne anigoo leh iyo magac wasiireedba
برلمان لما يريو أنو قورت الميدان موان هايستا balkadii berbera furantahoo mahad ilaah jooga anigoo ismaamula hayoon cidi imaagaynin ma dhacayso inaan maalin kale dubi midownaaye maankayga waan kaa jaree taada mara saaro dhalintii la muufeeyey ee xeebta lagu moosay maslax iyo jasiiraanan weli mala ilaaweyne maqaasaar ma kuu noqonayo iyo nacasaad maagtaaye muufadiinna iyo waanan rabin muuska kuu baxaaye ma dhacayso inaan maalin kale dibi midownaaye maankayga waan kaa jaree taada mala saaro makhluuqnimadu waa waxa qarribay marinadiinniiye adigoo 8 maamul gobol magacyo dheeraaday mooryaan hubaysanay adoy meel kastaba joogto kuwa madaxa duubtiyo adoo miina ku hor taalo magaalada dhexdeedana ku mara kaarama midabaysan madaxtooyadaadii adoo amasan maamusho ma dhacayso inaan maalin kale dubi midownaaye maankayga waan kaa jaree taada mara saaro muqdishoy maxaan kaa cunaad igaga meeraysan madashaan imaadaba maxaa meendha ku agtaagay midnimada afduubkaa maxaad iigu miyir beeshay maraboob sideedii miyaad marada ii raacday maya baan ku idhi ee maxaa maqalka kaa qaaday shacabkana mid baan odhanayaa masale waa yeela nimankan ka soo mudhaxsanee muula naga keenay murankoodu weli wuu socdaa maanay kaa hadhin miidiyaha waxay ka akhriyaan waydan maqashaan midnima idinkaga go'i kartaan macangagiintaasi mudmudkooda iyo idinku dhibin samirka meelaysta mintidnimada weligii noqdoo mowlo tala saarta malya sunno hadday idinku tegay meenka sii geliya midigta isqabsada wada jir baa lagu macaashaaye midmidhaafka hoosiyo ka taga meega gudihiinna marka ay malkada taagan tahay tiina mara saara meel qudha u wada jeesta oo magaca guud dhowra madaxda iyo guursida maqlo nabadda meeleeya miidiyaha gelinina waxaan meesha qabanaynin militariga iyo boolisyada maana gacan siiya muslimnimada xoojiya xaqana dhab ugu maasooda wabilaahi tawfiiq wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh